halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban FM-da magaalooyinka qaar iyo barteena internetka bbcsomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 5 bisha Abriil. saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. qodobada aad barnaamijkeenani ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo shacabka dalka Maraykanka uga baaqay inay u diyaar garoobaan tirada dhimashada ee sare u sii kacaysa. Jabuuti oo bilowday qorshe ay ardaydu qaab online ugu heli karaan casharrada. bishan jadiidka bilowgeygii waxaan bilownay inaan waxbarashadii telefishanka ka sii dayno, oon ka sii dayno maxaa la yidhaha raadioga aan ka sii dayno, oon ka sii dayno internetka anagoo isticmaalina platform la yidhaaho Moodle anagoo isticmaalayna ayaan waxbarashadii haato koobaadka ilaa malayo tobnaadka ayaan teginaa. walaac laga muujiyey saamaynta fayraska corona uu ku yeelan karo bulshooyinka ay ragaadiyeen colaadaha ee dalka Soomaaliya. waxaa kale aad ku maqli doontaan haydarjiin bamkii lagu dhuftay qiiqii Hiroshima, qumbuladii Japan laga helay uu ka halakoobay, cudur haliska weyn baa jiro here aadmiga ku hagoogo reerkiiyo nafto hooga soo raran. waa abwaan xasan axmed ibraahim oo ku sugan Hargeysa oo cabiray dareenkiisa ku aadan cudurka coronavirus. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali ano Cabdiraxmaan Xaaji Caddo in la socodsiinaya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii idaacadeena subaxnimo. waxaan u diyaaray Cabdifataax Ibraahim Cagayare. mahadsanid Cabdiraxmaan. madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu dadka dalkiisa uga digay in ay u diyaar garoobaan sare u kac ku yimaada dhimashada ka dhalanaysa cudurka coronavirus, isagoo sheegay in Maraykanku uu wajahayo 2 toddobaad ee ugu adkayd ee cudurkaasi safmarka. Mr. Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay in magaalada New York loo daadgurayn doono 1,000 ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee ciidamada militariga, magaaladaas oo farabaan uu ku hayo cudurkaasi. isagoo ka hadlaya aqalka cad ee lagu arrimiyo waddanka Maraykanka ayuu Mr. Trump waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay amartay in la sameeyo 180 milyan oo walxaha afka lagu xirtaa. dalalka Isbayn iyo Talyaaniga ayaa waxay diiwaan geliyeen waxoogaa horumar ah oo ay ka sameeyeen la tacaalidda cudurka coronavirus. Isbayn ayaa muddo ka badan 10 maalmood waxa ay diiwaan gelisay tiradii ugu yarayd ee kiisaska cusub ee cudurkaasi. Talyaanigana markii ugu horeysay tan iyo markii ay dhibaatada cudurkan bilaabatay waxaa hoos u dhacay bukaanada ay xaaladoodu liidato. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Ecuadorna waxa uu telefishinka ka jeediyey raaligelin kadib markii la shaaciyey sawirro u muuqanaya inay yihiin meydad lagu daadiyey waddooyinka magaalada Guayaquil. meydadkaas haatan waxaa la dhigay 3 goobood oo meydadka la dhigo. madaxweynaha waddanka Malawi iyo golaha wasiirada ee dalkaas ayaa waxa ay isku raaceen in ay si kumeel gaara mushaarkooda uga jaraan 10% si lacagtaas loogu isticmaalo la tacaalidda cudurka coronavirus. dalkaas ayaa toddobaadkan waxa uu diiwaan geliyey 4 kiis ee ugu horeysay ee cudurkaasi ah. midowga ciyaartooyda kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay gaashaanka u daruureen codsi loo gudbiyey xubnaha midowgaasi oo ahaa in mushaarkooda qayb ahaan la jaro si loo badbaadiyo shaqooyinka kale ee kooxaha ka dheela horyaalka Ingiriiska inta ay hakadka ku jiraan ciyaaraha cudurka safmarka awadi. dhowr kooxood ayaa waxaa lagu dhaliilay in ay ku tiirsan yihiin barnaamijka dowladda ee lagu bixinayo mushaarka shaqaalaha aan ciyaartooyda ahayn, xilli kooxahaasi ay sii wadaan in ay mushaar badan siiyaan ciyaartooyda kubadda cagta. wararka kalena waxaa ka mid ah ururka ay ku midoobeen dalalka soo saara shidaalka ee loo yaqaan ama loo soo gaabiyo OPEC iyo Ruushka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay dib u dhigeen wadahadal looga gol lahaa in lagu cadeeyo suuqyada saliidda ee caalamka. labada dhinac ayaa waxaa midba midka kale uu ku eedeynayay inuu mas'uul ka ahaa sicirka aadka hoos ugu dhacay ee saliidda. ugu dambeynna madaxweynihii hore ee waddanka Honduras Rafael Calages ayaa waxa uu ku dhintay isbitaal ku yaal waddanka Maraykanka. waxaa lagu waday in la xukumo kadib markii uu qirtay dembi ah musuqmaasuq inuu galay intii uu ahaa madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalkaas. Mr. Calages ayay ahayd in maxkamad ku taal magaalada New York la horkeeno bisha May ee soo aadan. warka caalamkana waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay cabdifataax ibraahim cagayar oo nala socodsiinaya warka idaacaddeenna subaxnimo halkaad nagala socotaanna waa b b c. aynu ku horreynay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shacabka dalkaasi uga baaqaya inay u diyaargaroobaan sare u kac ku yimaada tirada dadka u dhimanaya coronavirus. Mr Trump wuxuu sheegay xukuumaddiisu inay amar ku bixisay in degdega lagu diyaariyo 180 milyan oo maaskarada afka lagu duubto si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. dalalka Spain iyo Talyaanigana waxaa ka soo baxaya warar wanaagsan oo sheegaya in xogaha isbedel ay ka muujiyeen dhinaca cudurka coronavirus. Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa wararkii ugu dambeeyay noo hay haatan stuudiga kula soo biiray. cabdiraxmaan gobolka New York ayaa waxaa laga diiwaangeliyey 630 kiis oo dhimasho ah, taasi oo tirada guud ka dhigayso 3565 qof. duqa magaalada Andrew Cuomo ayaa sheegay in tirada ay sare usii kici karto labada toddobaad ee soo socota. Mr Cuomo ayaa sheegay in gobolka uu badigoob ugu jiro qalabka dadka ka caawiya neefsashada oo dheeraad ah. waxa uu mahad celiyey dalkaasi Shiinaha oo ugu deeqay qalabkaasi ee neefsashada ka caawinaya dadka uu ku dhaco xanuunka coronaviruska. dhanka kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu Mr Cuomo uu u xaqiijiyey in New York ay heli doonto kharashaadka ay u baahan tahay. Maraykanka ayaa waxaa guud ahaan laga diiwaangeliyey 300,000 oo kiis oo viruska corona ah, halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay 800,000 oo qof. cabdiqaadir sidaan la soconno dalalka Talyaaniga iyo Spain waxay ka mid ahaayeen dalalka markaa ugu dhimashada badan ee qaaraddaasi Yurub oo cudurka coronavirus faraba aanu ku hayay. marka xaaladooda halkay ku dambeysay? cabdiraxmaan, Spain labadan dal ayaa labadii dal ee aadku u dilooday xanuunkan, kuwaasi oo tirada dunida ugu badan ay ku dhimatay, ayaa haatan labaduba waxaa laga soo sheegayaa inay gaareen horumar lagula tacaalayo xanuunkan safmarka ah. Spain ayaa waxaa iyada laga soo wariyey tiradii dhimashada ugu yareed 10 maalmood ee lasoo dhaafay, halka Talyaanigana ay hoos u sii socoto dhimashada maalinlaha ee coronavirus. Talyaaniga iyo Spain ayaa laga soo tabiyey dhimashada ugu badan ee la xiriirta xanuunka COVID-19. hase yeeshee labada dal ayaa ugu dambeyn rajo muujinaya, waxayna labaduba aysan haatan diyaar u ahayn in ay khafiifiyaan amaradii lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa oo Spain ayaa iyada muddo 2 toddobaad ah ayayba kusii kordhinaysaa xayiraadii saarneyd ee dalkeeda. Ra'iisul Wasaare Pedro Sanchez ayaa sheegay in hogaamiyaasha mucaaradka uu ka codsaday inay taageeraan qorshaha bandowga lagu kordhinayo, kaasi oo muddo 2 toddobaad ah lagu kordhinayo. Comprendo lo difícil que resulta prolongar aún. waan ogahay sida ay u adag tahay dadaalada iyo nafurida 2 toddobaad oo kalena looga baahan yahay. waan fahmayaa dhammaanteenba maalmihii lasoo dhaafay waxay nagu ahaayeen kuwo aad u adag, maalmo aan bukaano la tacaalaynay oo aan guryaheena ka maqnayn. si mustaqbalka dhowe nagu soo fool leh oo wax uga qabanno cudurkan safmarka ah ee go'aanadeennii oo dhan xagga kale u rogay. waxaana aad uga murgaynaa saaxiibadeenna gaarka ah iyo eheladeenna cudurka la xanuunsan. dad badan waxay maalmihii lasoo dhaafay u ahaayeen maalmihii ugu adkaa ee noloshooda soo mara. De los familiares enfermos. Para muchos son los días más difíciles de nuestra vida. cabdiraxmaan, guud ahaan dunida marka aynu eegnana dhimashadu waxay gaadhay 60,000 oo qof, halka 1.1 milyan oo qofna laga helay xanuunkan safmarka ah. cabdiraxmaan, aad buu u mahadsan yahay cabdiqaadir Yuusuf Cali oo noo soo koobaya wararka ugu dambeeya cudurka coronavirus ee caalamka. dhinaca Facebook dhegeystayaasheen haddii mid ka mid aan ka soo qabto fikirkooda ka soo dhiibtay qodobkan, Cabdikhaaliq Xaaji Galabo oo jooga Burco waxa uu yidhi hadalka madaxweyne Trump waxaan u arkaa buu yidhi mid aan waxba soo kordhinayn. dowladda Maraykankuna waxay u muuqataa mid u taag weyday xakamaynta caabuqan safmarka. waa fikirkii dhegeystayaasheenna. isla wararkii coronavirus ayaanu ku jirnay. guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ICRC ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aad uga walacsan yihiin saameynta uu viruska corona ku yeelan karo bulshooyinka ay ragaadiyeen rabshadaha iyo colaadaha ee Soomaaliya, halkaasi oo barakac, nafaqo xumo iyo weliba dilaac cudurrada ay horey uga sii baaheen. guddiga ayaa sheegay inay habboon tahay in si degdeg wax looga qabto faafitaanka fayraska ee gudaha Soomaaliya. haddaba Axmed Nuur Cabdulqaadir Yuusuf oo ka tirsan xafiiska laanqeyrta cas ee magaalada Muqdisho ayaan arrintaasi ka wareysanay, wuxuuna u warramay Samiir Cabdullaahi Jaamac. aad waa mahadsan tahay. war-saxaafadeedkana wuxuu diiradda saarayaa xaaladda guud ee Soomaaliya hadda ay ku sugan tahay marka loo eego xanuunkan loo yaqaano coronavirus 19 ama COVID-19 ee adduunka ku baahay, iyo
guddiga caalamiga qaybta cas iyo dhigooda ururka bisha cas Soomaaliyeed ee shaqada ay ka wadaan wadanka iyo guud ahaan dhibka iyo khatarta uu leeyahay xanuunkan adduunka ku faafay oo adduunka Soomaaliya ku faafo guud ahaan saameynta ku yeelan karo ogta wadan ay wax gaarsiiyeen ama ay saameysay ama ay ragaadiyeen colaadihii iyo rabshadaha ka dhacay wadanka ay hore uga dilaaceen cudurro kala duwan marka guud ahaan intaasuu ku salaysan yahay walaal. waan gartay waa maxay doorka ICRC ee wax ka qabashada xanuunka corona oo haatan kiisaska ay sii badanayaan gudaha Soomaaliya? Soomaaliya hadda waxa ay ku sugan tahay waa xaalad waqti aad muhiim u ah si loo qaato talaabo degdeg ah looga hortago inuu ku faafo cudurkan gudaha Soomaaliya. Guddiga caalamiga la qaybta cas ay aad uga lacsan yihiin saameynta ku yeelan karo xanuunkan Soomaaliya oo ah wadan ay ragaadiyeen colaado taasoo keentay barakac iyo macluul. Marka waxay aad u talinayaan guddiga la qaybta cas iyo ururka bisha cas in si dhaqso ah dadka loo gaarsiiyo macluumaad iyo adeeg dhaqaale ku salaysan qaabka looga hortagi lahaa xanuunkan. Guddiga caalamiga la qaybta cas waxa ay wada dhigoodana la shaqeynaya ururka bisha cas wacyigelin macluumaad caafimaad ay gaarsiinayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale dadka ay barayaan gacmo dhaqashada qaabka looga hortagi karo fariimaha ugu muhiimsan ee xanuunkan. Ku dhawaad ilaa 500 shaqaale caafimaad ayaa loo tababaray xanuunkan calaamadihiisa iyo sida looga hortago iyo qaar ka mid ah mutadawiciinta ururka bisha cas ee Soomaaliyeed. Waqtigu aad muhiim ay u yahay in la badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. waa tahay war-saxaafadeedka waxaad kaga hadasheen in dadka barakacayaasha ay halis aad u daran ugu jiraan in uu si sahlan ugu faafi karo cudurkan corona. Marka qorsho miyaa jira oo aad dadkaas ku caawinaysaan? guddiga caalamiga la qaybta cas iyo saaxiibadooda ururka bisha cas ee Soomaaliyeed waxay ka shaqeynayaan inay gaarsiiyaan fariimo caafimaad dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadkooda kuwada u nugul inay gaarsiiyaan fariimaha caafimaadka oo kale ee gacmo dhaqashada ay isticmaalaan saabuun iyo chlorine. Sidoo kale guddiga la qaybta cas waxa sidoo kale ay ka shaqeynayaan inay gaarsiiyaan fariimaha caafimaad iyo saabuun guud ahaan xabsida Soomaaliya go'd ee 20 xabsi waxay hadda gaarsiiyeen saamiil 6 bilood oo saabuun ah xabsiga dhexe Muqdisho iyo xabsiga Kismaayo. Dadaaladana way socdaan wayna sii wadi doontaa. waan gartay maxay idin la tahay in looga hortagi karo khatarta ama saameynta uu ka geysan karo cudurkan Soomaaliya? xanuunkan Soomaaliya hadda waxay ku sugan tahay waqti aad muhiim u ah in laga hortago xanuunkan inuu ku faafo guud ahaan Soomaaliya. waxa aad looga baahan yahay in si dhaqso ah loola gaaro dadka macluumaad fariimo caafimaad wacyigelin iyo tababaro la xiriira qaabka ay uga hortagi karaan xanuunkan iyadoo la rabo dadaalkaas in la gaarsiiyo si dhaqso ah bulshada Soomaaliyeed. waan gartay dadka ku nool tuulooyinka iyo gobolada oo ammaan ahaan aan la gaari karin maxaa idinkaga qorshaysan? guddiga caalamiga la qaybta cas iyo ururka bisha cas ee Soomaaliyeed waxa ay ka shaqeynayaan ay gaarsiinayaan fariimaha caafimaad dhammaan goobaha caafimaad ee ku leeyihiin gudaha Soomaaliya oo ku dhawaad gaaraya ilaa 29 xarun caafimaad iyo isbitaallo ay gaarsiinayaan fariimaha caafimaad. sidoo kale waxaa jira guddiyo ama dad mutadawiciin ah oo galeen bulshada oo gaarsiinayaan fariimaha caafimaadka ee ku salaysan xanuunkan qaabka uga hortagi lahaayeen. Samiir Cabdullaahi Jaamac aad bay u mahadsan tahay. fikirka dhegeystayaasheen haddii aynu egno Safari Maxamuud Nuur oo jooga Muqdisho waxa uu yidhi saameynta uu reebay oo uu ku reebay bulshooyinka cudurkani ay daashadeen biiro colaadaha waa ay muuqataa wuxuuna reebay saameyn dhaqaale oo aad u daran gaar ahaana qoysaska danyarta ayuu kuwa colaadaha oo ay soo barakiciyeen. waa fikirkii dhegeystaheena halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. iyada oo toddobaadkii labaad ay xiran yihiin iskuullada iyo jaamacadaha dalka Jabuuti ayaa wasaaradda waxbarashada dalkaasi waxay haatan bilowday qorshe ay ardaydu qaab online ah uga heli karaan casharada. hase yeeshee waxaa jira caqabado taasi ka dhalan karta uuna ka mid yahay internetka. arrintaasi waxaanu ka waraysanay Mustafa Maxamed Maxamuud oo ah wasiirka waxbarashada Jabuuti. Cabdirasaaq Xaji Catoosh ayuuna u warramay. waa runo markii aan qaraarka la qaatay in iskooladii la xidho wasaaraddu waxbarashadu iyadu waxay u kacday inay isku diyaariso haddii la yiraahdo sidii ay waxbarashadu ay u noqon lahayd waxbarasho socota maadaama sad ogtootiinbaba iskooladii markii la xidhay ardadii xaafadii ay ku ekaadeen waxaa noqotay inay de noloshii ay noqoto si joogta u socoto. waan isdiyaarinay horta toddobaadkii ugu horreysay waxay ahayd toddobaad aan anaku iskoolka aan xirnay oo fasaxii abriil ahaa ayaan ka dhignay mars baan ka dhignay. marka toddobaadkaas waxayna siisay si aan isku diyaarin lahayn anaku oo wixii noo yaala wixii naga maqan
iyo hababkii loo tabinayay waxbarashadaas alxamdulilah markaan qoraalkii dhammaynay waxaan galnay inaan isdiyaarino oo iminka waxaa socda bishan jadiidka bilowgeygii waxaan bilownay inaan waxbarashadii telefishinka ka sii dayno oon ka sii dayno maxaa la yidhaha raadioga aan ka sii dayno oon ka sii dayno hadduu la yidhaaho internetka anagoo isticmaalayna platform la yidhaaho moodle anagoo isticmaalayna ayaan waxbarashadii haato koobaadka ilaa malayo tobnaadka ayaan tabinaa oo annaga oo telefisonka ka sheegnay saacadihii qayb kastaba amba arday kastaba saacadii uu ahayd inuu telefishinka hor joogo oo waalidadii aan weydiisanay weliba waalidaduna inay la socdaan barnaamijkaas inay la socdaan oo ardaydiina aan weydiisanay sidii hadhow toban marka iskoolada loogu soo noqdo loo eego inay ardaygii isagoo casharkii uu la socday inuu buuggiisaas uu wixii casharo exercise loo dhiibayey uu buuggiisii dib ugu qoro sidii hadhow toban macallinku markuu iskoolka u noqdo uu maxaa la yidhahaa u verifeeyo amba u eego waad mahadsantaha alxamdulilah wasiir dadku internet ma wada haystaan oo dadku isku tabar ma aan xagga internetka taa ma eegteen iyadu waa run waxaa jirta nimanka iskoolada baadiyaha hadday noqoto internetkii waa run ma haystaan amba waxaa dhicda ma televisionkii ma haystaan marka waxaan xooga saarnay xagga raadioga waxaad ogsoontiinbaba raadioga maasha allah waxa sahal oo loo helay iminka maaha waxa qaaliyana maaha raadioga baan isticmaalnaa oo waxbarashadiina aan ka tabinaa baadiyaha fog ee dheerna waxaan isticmaalnaa iminka waxaan samaynay casharo kooban kuwa televisionka ka socda oo maxaa la yidhahaa oo buug ku qoran ayaan maxaa la yidhahaa xagga aan geenaynaa oon u samayn doonaa hadduu la yidhaaho xagga baadiyaha waxa weeyaan muhiimaddu weliba waxa weeyaan markuu iskoolku joogsaday dholol waxaa jirta contin iskoleer la yidhaha cuntadii ay ardadaas imanaysa dad waqti ku cuntaynayeen maadaama iskoolku xidhmay waxaas inay xidhmaan bahayd marka waan ka joojinay taas cuntadiina way u socotaa buugga yar kooban cashar koobanna iyakaan u samaynayna waan gaarsiinaynaa iyo waxaan u samayn doonaa meesha ay joogaan qof kolley amba shaksi wuu jiraa bachelor ay haystaan ba license haysta kaba u noqon doona waxa la yiraahdaa tutor noqon doona oo isagu casharkaasi u dhib yaraysiin doona ta kale aan anagu ku tira jirna aan barnaamijka uga talagalnay waxa weeyaan marka iskoolka lagu soo noqdo horta ma suuroobayso in imtixaano laga qaadi karo casharka inta waqtiga ay xaafadaha fadhiyaan ee telefishinka casharada ka socda wasiir Mustafa marka waxaad ka warantaa qorshihiina ardayda sanadkan u fariisan doonta imtixaanaadka maxaa la samaynayaa ma dib baa loo dhigi mise imtixaanka weli waa loo fariisan karaa waxa weeyaan horta casharadan aan telefishinka aan ka sii daynayno amba raadioga amba internet ka sii daynayno aan noqoto toddobaad ha noqoto 2 toddobaad ma suurtoobayso horta inaa casharadaas imtixaanka ciyaalka ardayda laga qaado waayo waxa weeyaan ardaydii si midaata uma helayso waxbarashadii waxay noqon doontaa markaa iskoolka lagu soo noqdo 2 toddobaad dabadeed hadduu yeelira inaa markaas si muraajacaad loo sameeyo oo dib loogu soo noqdo si degdeg loogu soo noqdo sidii dadka la midayn lahaayo si midaata casharkii ay ugu heli lahaayeen taa imika wax su'aasha waxaana hor timida amba taala haddii ay sii bataan dadkan xanuunka qaba maxaad arrintu see noqon doontaa amba sidee loo maareyn doonaa ardadaasi iyo imtixaanadii noo qorshaysnaa sanadkan taasina insha allah qorshihiisa waan wadnaa oo si allah toddobaadada soo socda ayaan insha allah aan si official aan u sheegi doonaa laakiin waa arrin noo qoran oo strategiga iyo sidii habkii aan u sameynaynay insha allah aan diyaarinay hadduu la yidhaha kaasi wuxuu ahaa mustafa maxamed maxamuud oo ah wasiirka waxbarashada jabuuti wuxuuna u warramay waryaheena cabdirasaaq xaaji caatoosha dhinaca facebook haddii aan mid ka mid ah dhegeystayaasheena soo qabto caasho ayaan le artan oo ku nool degmada isku shuban waxa ay tiri waan bogaadinayaa jabuuti qaabka casharada ay markaa ardayda ugu bixinayso online waana tallaabo wanaagsan oo ardaydu ku dhammaysan doonaan intii u dhinayd casharadoodii mahadsanidin b b c ay tiri adiguna waad mahadsantahay dhegeyste isla wararkii coronavirus aan weli ku jirnay tani iyo intii xanuun dhaliyaha coronavirus ee xawliga ku fidaya uu dunida ku soo biiray waxaa batay siyaabaha kala duwan ay dadku uga hadlayaan markii ay ka yaabeen sida uu dunida mar qudha uu argagaxa u geliya cudurkan dadka qaar waa ay ka heeseen qaar waa ay ka gabyeen qaarna sheekooyin ayay ka sameeyeen aqoon-yahan xasan axmed ibraahim embasi oo jooga hargeysa ayaa markaa ka mid ah dadka uu ka hadashiiyey xanuunkani sugaana ku cabiray dareenkiisa waxaana magaalada hargeysa kula kulmay wariye cabdulaahi jaamac waxaa dhex marta sheekadan muddooyinkii dambe adduunka intii uu ku soo biiray xanuunkan cusub ee coronavirus dad badan ayaa waxay isku dayeen bal inay si uun dadka u wacyigeliyaan iyagoo eegaya halista xanuunkan ka soo foolle xasan axmed ibraahim embasi waxa uu ka mid yahay dadka aqoonta leh ee bulshadana uga diga hadba wixii soo hormara gaar ahaan waxa uu isagu wacyigelintiisa ku sameeyaa dhinaca suugaanta xasan axmed ibraahim embasi oo dadka u dhuundaloola arrimaha bulshada ah ayaa waxa uu dhowaan soo saaray maanse yar oo gaaban oo uu ugu talagalay ka wacyigelinta bulshada ee dhinaca xanuunkan cusub
ee coronavirus xasan embassy waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa sheeko la xidhiidha xanuunka coronavirus ayaana dhex martay waxaan weydiiyay markii uu arkay xanuunkan sida uu dunida faraha baas ugu hayo bal wixii isaga u soo baxay horta markaad aragto Talyaaniga iyo qoladan la yiraahdo Isbaanishka waa dad aad mood Soomaaliya isku dhow Yurub kale markaad eegto Isbaanishka iyo mataqaana Talyaanigu way ka dhow yihiin waa dadka sheekada badan ee sidee noo kala maartay meelaha isku yimaada inta badan sheekeeya waxa la moodaa hadda xanuunka labada dal ayaad moodaa in ugu sii daran yahay xagga dhimashada marka inaguna horta marka sheekadan iyo waxan intaas sanood baan soo wadno wax faa'iido way yeelan weyda hadii xanuun badee moogtay sheekadii lagu qaadayo inaynu iska yareysano way waxaan aanu sheekadu mar bay kula hadhaa oo eersata hadal waa waxaynu hoday meel fadhigu goob hawaarsigu ninkii hodala nabad gale ha isku tagin suuq marka eeg suuqan loo tagayo ayaa waxa la leeyahay khatartii weyn ay ku jirta daawo lama helin marka waxba lagu leeyahay war suuqa iska joogo meel ha tagin marka xanuunka culays badan buu adduunku ridaa la leeyahay quwadihii waaweyna kuwii aan waxba haysan dadkii qaylu kaga sii daayay culayska xanuunkan leeyahay markaad eegto maxaad ku qiyaastay ka suugaan ahaan hydrogen bamkii lagu dhuftay qiiqi Hiroshima qumbuladii Japan laga helay uu ka halakoobay cudur halis ka weyn baa jiro here aadmiga ku hago reerkiya nafto hooga soo raban xasan waxa leeyahay bahalkii dawal looma hayo ilaa imika talaal looma hayo wax kale looma hayo waa lagu wareersan yahay maxaa tiri ku hor joogsan meel xada garoon ka hortag mooyaane waa cudur hadduu kugu habsado maara loo helin waa cudur hubka daafaca iyo daawo loo helin ku hagoogo reerkiya nafto hooga soo hoyn xasanow waxa la leeyahay fididiisii wax walba ka dheeraynaya virus kasto adduunka soo maray oo hore loo arkay kan wax la mid ah lama arag markii aad u fiirsatay maxaa ku soo baxay waa cudur hawadu qaadayso iyo leeyda heegadu hargabkiyo sidii cudur fantu kuban haleela hindisada wuxuu raacayaa daalhamaansiga markaad dhistay markaad qufacdayo waa taleela waad ka qaadaysaa xumad lagu hadruu leeyahay iyo heer kul waaliya waa cudur hunguriga sankiyo laabta ka hela ugu dambeynta xasanow adigu suugaantan aad samaysay iyo wacyigelintan aad samaysay markaad isu wada geyso maxaad ku oran lahayd dadka ay dhageysanaya wallahi waa khatar taas horta la iska ilaaliyo way ilaah baa wax ilaaliyo laakiin adiga ilaahay wuxuu ku yiri war adiguna nacsa noqonin war hadii lagu dhisaas kaliya laga nabadgelaya adduunka ilaahay anu 24 saac markaan meelaha joogo wax kale ilaahay ma weydiisto ilaahay cudurka naga haybaan hada waa cudur hambaynayn qof weyn haasan ruuxda waa cudur runjuum baan wata oo soo horkaca mowd inta la hubsanayo ee xal hira cidi haleelayso hoygaaga joog iyo guryaha hawla ha u kicin ninkii hoodala nabad gale ha isku tagin suuq aad buu mahadsan yahay wariye Cabdullaahi Jaamac halka dhageysan lagala socotaan waa BBC imikana India magaalada galbeedka India ku taal ee Mumbai waxay ka mid tahay meelaha marka ugu daran ay ku sugan yihiin bukaanada qaba viruska corona ee dalkaasi iyadoo viruska laga helay dad ku nool isku raranta ciriiriga ee magaalada ayaa waxa laga cabsi qabaa inuu xanuunkani u aad u sii faafo iyadoo sii kordhaysa tirada kiisaska corona wariyaha BBC-da ee dalka Hindiya Yogita Limaya ayaa booqatay isku raranta Dharavi ee magaalada Mumbai warbixinta ay nooga soo dirtayna waxa soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abuukar coronavirus ayaa gaaray isku raranta ugu weyn qaaradda Aasiya qiyaastii 1 milyan oo qof ayaa ku nool dhul cabirkiisu uu yahay 2 kiiloomitir oo isku wareeg ah inkastoo ay bishii la soo dhaafay dowladda Hindiya soo rogtay xayiraad haddana taasi halkan suurtagalka ma aha Maxamed Raxmaan oo ka mid ah dadka ku nool isku raranta Dharavi ayaa ka warbixinaya xaaladda halkan ka jirta dadku halkan cabsi weyn ayay ku dareemayaan haddii hanaanka caafimaadka ee waddanka Talyaaniga oo loo aqoonsaday dalka labaad ee uu sida baan u saameeyay coronavirus oo uu wax ka qaban waayay xanuunkan Hindiya aad ayay uga dambaysaa sida daradeedna dadku waxa ay ka walwalsan yihiin waxa halkan ka socda iyo talaabada xigta ee ay dawladdu qaadi doonto हमारे पास सरकार आगे क्या प्लान कर रही है waddankan oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan dunida ayaa waxaa lagu cambaareeyay inuusan samaynin baaritaanka xanuunka coronavirus ee markaasi loo baahnaa
hindiya waxaa la sheegay inaysan haysan qalab baaritaan oo ku filan sidaa daraaddeed dadka xiriirka la yeesha kuwa qaba fayraska amaba dadka u safray dalalka uu xanuunku aadka uga jiro ama shaqaalaha caafimaadka ee fayraska la dagaalamaya ayaa la baaraa. tirada kiisaska ayaa aada u kordhaya, dhaqaatiirta ayaana ka walaacsan inaysan awoodi karin wax ka qabashada faafitaanka fayraska. hindiya 10kii qof waxaa ku soo aadaya 8 dhakhtar marka loo barbardhigo talyaaniga oo 41 ah iyo kuuriya oo 71 ah. hal isbitaal oo ay dowladdu maamusho ayay ku tiirsan yihiin dad ka badan 55,000 oo qof. dadka badankood ma tegi karaan isbitaalada gaarka loo leeyahay. waxaa dalkaasi lagu yaqaanaa baaritaan hooseeya. dadka isku arka calaamadaha hargabkana ma tagaan isbitaalada ee taa beddelkeed guriga ayay isku daweeyaan. waxaanu la hadalnay dhakhtarad ka howlgasha isbitaal ay dowladdu leedahay kaasoo u adeega ku dhowaad 3 milyan oo qof. dhakhtaradda oo codsatay in magaceeda la xuso ayaa sidan BBC-da u sheegtay. gabi ahaanba ma diyaarsanin. isbitaalkeena wuxuu keliya leeyahay 6 qalabka hawada nadiifiye ah. sidaasi darteed waxaanu isku dayaynay inaan helno qaab aan halkii qalab ugu adeegsan karno 2 bukaan si loo daaweeyo dadka tirada badan ee qaba xanuunka. waa wax aad u cabsi badan. dhammaanteen halkan waan ku daalnay. ma u malaynayo in dhakhtar walba oo halkan jooga uu aaminsan yahay inuu caawinaad helay. waxaan u baahannahay qalabka caafimaadka. waxaan u baahannahay barnaamijyo tababar ah. dowladdu ma aysan maalgashan daryeelka caafimaadka. waxaana jiro goobo badan oo miyi ah oo aan lahayn xarumo caafimaad. ma laha isbitaallo. ma haystaan dhaqaatiir halkaas ka shaqaynaya. waxaan filayaa inay noqon doonaan halka ugu daran ee xanuunkan uu saameeyo. tirada kiisaska ayaa aada u kordhaya. khatarta hindiya soo wajahda waa mid sidoo kale saameynaysa dunida inteeda kale. sujaata raawo waa sarkaal hore oo caafimaad. waxaanu nahay bulsho gaaraysa 1.3 bilyan oo qof. waa tiro aad u badan runtii. sidaas darteed haddii xaaladda halkan laga xakameyn waayo waxaanu sii badinaynaa culeyska adduunka saaran ee uu xanuunkan sababay. waxaana sidoo kale ku dhex faafinaynaa bulshada. hindiya ayaa haatan sare u qaadaysa baaritaanka. saraakiisha dalkaasi waxa ay sheegeen in shaybaarada ay awoodaan in muddo 6 saacadood gudahooda ay ku soo saaraan jawaabta, islamarkaana shaybaar walba uu samayn karo ilaa 90 baaritaan maalintiiba. aad bay u mahadsan tahay Faadimo Macalin Abuukar. hadahan oo kale waxaan nooga bartaan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha inuu gudbeynaa. haddii aynu ku horeyno midowga ciyaartooyda kubadda cagta ingiriiska ayaa waxay gaashaanka u darooreen codsi loo soo gudbiyey xubnaha midowgaasi oo ahaa in mushaarkooda qeyb laga jaro si loo badbaadiyo shaqooyinka kale ee kooxaha ka dheela horyaalka ingiriiska inta ay markaa hakadka ku jiraan ciyaaraha cudurka safmarka ah awgii. dhowr kooxood ayaana waxaa lagu dhaliilay inay ku tiirsan yihiin barnaamijka dowladda ee lagu bixinayo mushaarka shaqaalaha aan ciyaartooyda ahayn xilli ay sii wadaan in mushaar badanna ay siiyaan ciyaartooyda kubadda cagta. dhinaca kale suuqa kale iibsiga ciyaartooyga caanka haddii aynu egno waxaa si weyn loo hadlayaa ciyaartooyga Neymar jeer iyadoo la sheegayo inay suurtagal tahay inuu ku laabto kooxda Barcelona oo horay uu uga tiirsanaa. xubintii ciyaaraha intaa ayaanu markaa ku joojinaynaa. waqtiga ayaa inahaya. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali, anoo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi la socodsiinay intaan ka kulmayna 2 duhurnimo. waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.